هذا مرحمة هذا مثلا يقول كذا ودلي الحمد لله رب العالمين سجن حد يقول أنت قولوا ربي أو رويدي إلا تقول يقولوا إيه قد تدك وقدلا ويلا دشوا دعوعي توري ورنا كجري حول مجاري فعليا الحمد لله استلك يلا والكلام درس هاسي وكل أصل دعوة وياه استلك يلا الناس كي ودعوعي أسكري يا مركو توري كل فتي حب النقطة الله كل فتي حبيت مثل النقطة الله كل فتي وهذا اللي قعدت كل شيء توري مركز قعدت حب الله كل فتي العسكري نفسي سوبر بتسناي أنا الحمد لله رب العالمين حتى لو حان ديار قلنا هم بيتكنا عاصمة إن شاء الله بسات كان سوينا جنازة أنا كنت كنا هذا وأن tani waxay noqotay arrin naxdin iyo warwar leh. ninkan ayaa isla waqti xadiradii ugu dambeeyay ku dilay hooyadiis gudaha Soomaaliya ee Muqdisho, kaasoo isaguna kadib markii ciidanka booliiska ay soo qabteen ay rasaas ku fureen isagoo oo islaha ka baxso ayay rasaas ku dhufteen. halkaas oo isla waqti xadiradii ugu dambeeyay isaguna ku geeriyooday, halkaas oo isla hooyadiina uu ku dilay. hooyadii oo sida baraha bulshada lagu faafinayaa ama TV-yadu ay sheegayaan da'deedu tahay lagu qiyaaso 70 jir. isaguna runtii wuxuu ahaa marka TV-ga uu ka hadlayay nin qoyska islaanta laga dilay iyo isagaba ay ka tirsanaayeen uu ka hadlayaa ilaa 25 jir ilaa 26 jir. haddaba runtii haddaad xiisaynayso muuqaalkan inaan soo gudbino xogta rasmiga sax muuqaalkeena like saar si uu sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena. waad ku mahadsantahay janqaadkaaga ee ku soo dhawaada muuqaalkeena. tani waa dhacdo xanuun badan oo runtii ka dhacday isla gudaha Soomaaliya ee Muqdisho, taasoo 24 saac baraha bulshada la soo dhaafay ay haysatay geerida iyo tacsida loo diray isla waqti xadiradii iyo family-ga ay ka baxeen dadkaas. runtii dhacdadan ayaa waxay noqotay mid warwar iyo argagax ku abuurta dadkii family-gii ay ka tirsanayeen labada ruuxba, halkaas oo saaka u dareereen laba ruux oo ka mid ah family-goodii geeri isla waqti xadiradiina ay ku dhibaataysanaayeen sidii ay u aasi laayeen isaga iyo hooyadii. halkaas oo isaga lagu aasay ama hooyadiina isla raaciyay kadib reerkii markay u wara dareereen in ay soo aasaan isla family-gaasi ahaa. haddaba sidoo kale dhacdadan ayaa ka dhacday gudaha Soomaaliya, inkastoo ay ku yarta caalamka islaamka qof hooyadiis dila, laakiinse waxay ka dhacdayba Soomaaliya oo Muqdisho ayay ka dhacdayba. runtii waxay noqotay dhacdo dhagta farta laga geliyo oo qofka muslimka markuu maqlo in laga aamuso ay waajib tahay. halka subxaanahu wa tacaala ilaahay quraankiisa ku sheegay in hooyada qofkii u adeecsama ay runtii jannadiiba ay u tahay. xadiiska nabigeena naxariis nabadgelyo haatee saxiixa ayaa laga soo wariyay in qofka muslimka hooyadii 100% inuu dabacsanaado oo runtii akhlaaqdiisa ilaaliyo. sidoo kale nabigeena ayaa laga soo wariyay in xadiistiisa saxiixa ee laga soo wariyay in hooyadii jannadiisu ay ka mid tahay labadeeda lugood hoosteeda ay jannadu ku jirto. haddaba sidoo kale xadiis kale laga soo wariyay nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa halka 3 darajo la siiyay hooyo isna aabana 1 darajo la siiyay. sidoo kale halkaas waxaad ka fahmi kartaa qiimaha iyo qadarinta hooyo ay ku leedahay diinta islaamka. haddaba haddii muuqaalkeenan aad ka faa'iido wax badan saaxiib like saar si uu sii gaaro dad badan oo kamid ah asxaabteena. sidoo kale waxa waaliyaba in ay runtii ka dhexdhexdo arrinkani gudaha dad muslimiina. sidoo kale maxaa ka jira in ninkii uu ka soo qayb galay aaska hooyadii, runtii taas oo ah been isla baraha bulshada lagu faafinaya ayaa runtii kadib markii uu dilay hooyadii uu baxsaday halka ciidanka qaranka Israa'iil soo qabta halkaasna rasaas ay ku fureen kadib markii askari iska difaacay uu toori la soo baxay halkaas oo xambad kaga muruxsatay, sidaas darteedna uu halkii ku geeriyooday. sidoo kale waxaa sharaxaya mid ka mid ah qoysaskii uu ka tirsanaa family-gan murugada iyo mucjisada soo aaday. waa kana muuqaalkana ee daawo.